فنينا العمر أضحى كتاب الإصلاح المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث الثالث، حديث كسدحات، عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. waxaa laga warinayaa Nucmaan bin Bashiir. xadiiskan waxaa ku soo marnay 40ka, inta badan axaadiis 40kan ku soo marno, sharaxooda kuma dheeraanayno. haddii laba xadiis ay kulmaan, midaan 40 ku soo marnay iyo mid cusub hadday kulmaan, midka 40 ku soo maray dabcan lagama tagayo, lama dhahay waan soo marnay, dad buu u cusub yahay. waa la akhrinayaa, sharax yar baa laga taabanayaa, kadibna xadiis labaadaan ku darayna. haddii laba xadiisoo cusub ay noo kulmaana midaan qaadanayna, hal mid baan akhrisanayna maalintaas ayada. marka waxay ka dhigmaysaa xadiiskan hadda aan akhrinayno iyo xadiis kale ku xijinayno anagoo hal xadiis qaadanaya oo kaleento. waa dadkii soo maray 40 hal xadiis bay u tahay, ilaa xadiiskan alxalaala bayin 40kii ku soo mareen. marka sidaas weey macnaha. dadka kale cusubna laba xadiis ay u noqonaysaa markaas. waaya Nucmaan laga warinayaa wuxuu yiri qaala wuxuu yiri: samictu waxaan maqlay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga oo yaqulu dhahaya: inna alxalaala xalaashu bayinun wa caddah wa inna alxaraama xaraamtuna bayinun wa caddah wa la'di wa baynahumaa xalaashi xaraanta waxa u dhaxeeyo umuurun arimo oo mushtabihaat isku eg la ya'lamuhunna aysan garanaynin kathiirun in badan oo min annaas dadka kamid ah. dadka in badan oo kamid ah garan maayaan. faman ittaqa shubahaat, qofkii shubahaadkaas ka fogaada, faqad istabra'a wuxuu ilaashaday lidiinihi diintiisu ilaashaday. istabra'a wuxuu ilaashaday diinihi diintiisa iyo cirdihi sharafkiisa. waman waqacase qofkii ku dhaca oo dhex dabaasha fi shubahaati shubahaadkaas waxyaabahaas ku eg waqaca fi lxaraam xaraam buu ku dhacay. ka raaci oo kale waa irijiraha oo yarca ku raacaya xowla alximaa meelaha xiran hareerahooda. xowla alximaa beerta xiran, meelaha beeraha ah ee xiran hareerahooda ku raacaya. yuushiku wuxuu sigayaa marka ultim ugu dambeyn an yaqaca fiihi inuu ku dhaco. ugu dambeyn wuxuu sigayaaba inuu ku dhaco. ilaan hareeraheeda maxaa kugu kor wareeji? waxaa beertan waaba xiran tahay, waxaan waaba xiran yihiin, maxaad ugu dul wareegsanaysaa? almiina waa ku dhacaysaa ultima marka. saas wii macnaha. alaa wa inna likulli malakin, boqor kasta ximan buu leeyahay, meel xiran, meel u xiran, meelaan laga soo gelin ayuu leeyahay. boqor kasta wuxuu leeyahay xis buu leeyahay. way alaa wa inna ximallaahi, ilaahay yani waxa weeyaan muxuu ahaa meelaha u xiranna maxaarimuhu waa maxaarimtiisa, waxyaabaha u xaaraantimeey waa macnaha xirmooyinkiisa waa waxyaabaha u xaaraantinimey. macnaha waxyaabaha u xaaraantinimeeyaa difaaca, ha soo gudbin waxyaabaha aan xaaraantinimey, ha samaynin, waa maxaarimtiisa waa marka. alaa wa inna fi ljasadi, alaa hooy baraaruga oo kaca, inna fi ljasadi jirka waxaa ku sugan mudqatun cad hiliba, idaa salaxad hadduu hagaago salaxa aljasadu kulluhu jirkoo dhanaa hagaagaya. wa idaa fasadad hadday fasahaadase fasada aljasadu kulluhu jirkoo dhan waa fasahaadaya. alaa kaca oo baraaruga, wahiya alqalbu qalbiga waa buu inoo maxamed sal alla alay wasalam. waay xadiisku waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xalaashu in la caddeeyey, oo hadda qof dhihi kara ma jiro waxyaabahaas anigaa xaaraantinimay dhihi kara ma jiro, shiiqaygaa xaaraantinimaysa ma jirto. horaa loo caddeeyey xalaashu horaa loo caddeeyey. mana aha qof wax uu xalaalayn karo, qofna wax xaaraantinimay kara ma aha. wax kasta horaa loo caddeeyey. cidda hadda isku daydaayay inay wax xalaaleyso ama ay xaaraantinimaysana waa lagu daba dhagan yahay, cid ka yeelaysa ma jirto. waay wa ina alxaraama xaaraamtuna bayinun waa caddahay oo waa la caddeeyey. waxaas waa la caddeeyey. wixii xaaraama waa cad yihiin, waa iska cad yihiin, oo qof dhihi kara ma jirto waxyaabaha xaaraamta waa xalaal, abood uma laha. waay
wa baynahumaase waxaa u dhexeeya umuurun arrimo mushtabihaat isku eg yacni shabah way isshabahaan macnaha umuuro waxaa jiro xalaashana shabaha xaaraamtuna shabaha waxaanay xalaalna waa u egyihiin xaaraanna waa u egyihiin maxaa samaynaysaa maxaa kaaga banaan waxaa kaaga banaan marba hadduu muran soo galo ma xalaal baa maya waa xaaraan maya xalaal waa maya xaaraan waa xadiiskaana u daliila kana u daliila mar walba haddii yani waxa weeyaan markaas khilaaf ama bayna alculamaa ha noqdo ama khilaaf baa mar hadduu soo galo waa la iska daayaa waxaas laguma mashquulo waay waxaan waa xaraam waa xaraam waa xalaal waa xalaal qaado wixii cad waa qaadanaysa wixii shaki ku jiro waad ka tagaysa maxaa yeele laa yaclamuhunna garan maayaan kathiiru min annaas in badanoo dadka ka mid a ma garanayaan waa ku dhacayaan waay faman ittaqa shubahaat shubahaadkaas qofkii iska ilaaliya faqad istabra'a lidiinihi wa cirdi yani waxa weyaan markaasi diintiisa iyo sharafkiisa ayuu badbaadsaday waay laakiin waman waqaca qofkii ku dhaca fi shubahaati shubahaadka asaga ah waqaca fi lxaraam xaaraam buu ku dhacay ilan asigu wax daliila uma haysto laakiin labada xerig mid buu qabsaday waa xalaal waa xaaraam xalaashu waa iska xalaashaday waa iska galay marka shaki buu ku galay xaaraam buu ku dhacay marka waay ka raaci kii raacayo kale waa yarcaa xawla alximaa kii iri jirahoo kale midka iriga jira midka xoolaha jira midka waxa raaca la raaciyo oo kale oo yarca xawla alximaa beeraha xiran hareerahooda ku dul wareegaya beeraha xiran hareerahooda buu ku dul wareegayaa maxaa ku dul wareejiyey xoogaa cooska yaroo geesaha ku yaalo erigaha ii daaqoo lee meeshaasoo hunguri ka galay beertan waa xiran tahayo cooskeeda iyo daakheeda iyo dalageeda waa ku dhex jira waana la xiray hareeraheeda haafka yaroo aad ka helaysid maxaa kaa soo gelay maa intaad baxdi meelahaas kale arsaaq uraasatid maxaa beeraha kugu dul wareejiye saas wey maanaa saasoo kale wa waay yuushiku wuxuu sigayaa marka an yartaca fiihi marka qofka noocaas oo kaleenta ah ugu dambeyn waa ku dhacayaa beerta ilaan xoolo weeye ma ilaalin karo say u daaqayaan geesaha u daaqayaan laan ka mid ay soo goosanayaan waa daaqayaan waa xadayaan ugu dambeyn waa ku yaacayaan waay alaa wa ina likulli malakin ximan boqor walba meel u xiran oo leeyahay boqor walba meel buu xirtay aan laga soo geli karin laakiin alaa wa ina xima allaahi ilaahay xirmooyinkiisa maxaarimuhu wa ilaahay meelaha u xiran waa maxaarimtiisa waxyaabahan isagaa xaaraantinimay ka hara waxaan asigaa kuu xalaaleeyey cun waa kuu xalaale xalaal wixii gacantaada soo gala waa hadhihin xalaal wixii gacantaada soo gala waa hadhihin saas hadhihin xalaal waa wixii ilaahay kuu xalaaleeyey nabigas ku xalaaleeyey sharciga uu kuu xalaaleeyey wa xaaraamna wuxuu sharciga kaa xaaraantinimay mana cuni kartid mana ku dul wareegi kartid ku dul wareegitaanka waxaa la yihahdaa masalan sigaar ma cabtid soo ma sigaarka waa xaaraam sharcigeena waa xaaraantinimay soo ma haddaad tirahda kar waa dhadhamina bal markay cabayaan bal aan fiiriyo say noqonaya horta dadkan maxay u cabaan waa baroobayna hadhihin qamrada soo ma qamradan waxaa la sheegay in lagu wareerayay bal hal mar qub le dhahaa bis ama furkan wax yar ku shubana waa dhadhamiya carabkaa saara hadhihin jaadka oo kale ama khaadka sida loo yaqaano haddaad tirahda ka hor laantan bal hal mar ilkaha ogaa hilibaa iga jira waa ku babaxsana ama laantan waa dhadhamina ma qareer baa ma wax hadhihin maxaa xaaraana oo yani waxa weyaan waxba aan kaa soo gelaynin inay wax kaa gooyaan mooyaane maxaad u dhadhaminaysaa sun oo kale hadda inaad cabta ma ahana lagu dha waa lagu dhimana sun wax dhadhaminaya ma aragteen dadku waa naf jecel yihiin allah ileh waay dadku waa iska naf jecel yihiin suntan waa lagu dhimana ha cabina allah qof sun dhadhamihaya ma arkays laakiin dhammaan laanjaaday wataanay way dhadhamihayaan waxay leeyihin waa dhadhaminayna ma qareer baa mase waa macaan waana xaaraam ya ilaah xaaraantinimay laakiin suntii waxay leeyihiin maya ma sun maa la dhadhamin karaa ma idilay kuleeyaade ma idilay tanna way ku dilaysaa waa xaaraamo laga yaaba inay naar ku geliso waay wa ina fi ljasadi mudqa jirka waxaa ku sugan buu yidhi nabi maxamed sal allahu alayh wasalam cad hiliba idaa salaxa salaxa aljasadu kulluhu
haddii uu cadkaas hiliba hagaago jirkoo dhanaa kuu hagaagayo bal wa idaa fasadat haddii uu fasahaado fasada aljasadu kulluhu jirkoo dhan waa fasahaadaya. cadkaas hilib yaa yaqaan alaa wahiya alqalbu qalbiga waa buu nabi maxamed sal alay slam qalbiga qofka hadduu u hagaago qalbigiisa uu xasiloon yahay qalbigiisa uu degan yahay jirkiisoo dhan waa hagaagaya balse qalbigiisa haddii ay ku jirto taqallub gadgadoon fara badan qalbi xumo niyad xumo haddii qalbigiisa ku jirto weligiis ma hagaagayo jirkiisana ma hagaagayo jirkiisa xataa ma hagaagayo marka qalbiga hala hagaajiyo insha allahu tacaala quluubta hala hagaagsado waay quluubta maanta dad badan baa qalbiyadu dhib ka haystaa murugaysan dhibaataysan fikirsan ha isfikrinin ha ismurjinin wax walba waktigooda ay ku dhammaanayaan wax walbana waktigooda ayay ku dhacayaan waay xadiiskaas halkaasaan kaga gudbaynaa xisaabta ku dara oo kitaabka waa 100 xadiis waay الحديث الرابع حديث كأفرات عن حكيم بن حزام عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم حديثك وحلقة وريني يا حكيم بن حزام بلغ وريني حكيم وصحابي جليلة وعلي هذا 6 سنة أيو قالها 6 سنة مسلم بوها قال لماذا 6 جربوا كسو قاري إسلام لماذا 6 سنة بو إسلامها كدي موادنت عجيب إله ونعمه سبحانه وتعالى سيدو كلو حلو مقعابا حكيم حيابها لغو الشيء وحكمي ده كعبضة إنو كدحدش كعبضة دحديدو كدش أو يديس وحاملة وقيبه قدام بيئة كعبضة دح جوكتا كعبضي ku foolatay kacbada ayayna ku dhaxdashay kacbaday ku dhaxdashay marka kacbada lagu dhalay xakiim ninkan la yiraahdo waa saxaabi jaliila oo weyn macna qaal wuxuu yiri xakiim sa'altu waxan su'aalay buu yiri rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka allah su'aashay waan su'aashay waxa laga wadaa yani wax baan weydiistay rasuulka ilaahay wax isi oo kale wax baan su'aalay sa'altu waxan su'aashay رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سؤال شيء أم وح ويديستي وحبان ويديستي رسولك فأعطاني مركز إسي ثم كدب سألته وحبان ويديستي هذا فأعطاني وإسي ثم كدب سألته وحبان ويديستي فأعطاني وإسي وحبان ويديسنا يا وإسينا يا رسولك إلهي أرمى وحيق قصن هو رسولك إلهي حقا عرور تاسدانا هو بيلك رسولك إلهي وسدانا هو فالسينا سدح مرس أسمي ثم كدب قال وحويري نبي قاعد هاي قال وحو إلهي بويري حكيم رسولك وحو إيري بويري يا حكيم حكيمو إن هذا المال مال كان وأد وجهده وأد خاذنا يسو خضر ومد عقارا حلو ومد معان فمن أخذه هدد أخاذته أما قفك أقاته فمن أخذه قفك أقات مالك بسخاوة نفسه نفتيس قناع ذا نفتيس إنه قنعي بوقات باهيا وهيسو وباهيا واقات بورك له فيه والله بركينا يا مالك وحقاتي والله بركينا بل سوى من أخذه قفك أقاتا بإشراف نفسه نفتيس هنقري ويني ذا هنقري ويني حول بطسي وحبطسو سد برسي يوحي لمده بعد مالكي أقادتي nafsadaada rabtaa xoogaa inaad kor ugu qaado wax waa haysataa laakiin inaad wax badsataa rabtaa gurweyniyaa ku hayso biishraafi nafsihi saas lam yubaarik lahu fiihi looma barakaynayo buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qofka sidaa u qaata looma barakaynayo wa kaana wuxuuna noqonayaa kalladii midkii oo kale ya'kulu wax cunaya oo walaa yashbac aan dhargeynin kalladii ya'kulu walaa yashbac wa kaana wuxuu ahaanayaa كالذي كي أو كله أو يأكل عنيا ولا يشبع عن درجين قف وح عنيا درجين كور وضل يا مان ترى لون تبخسن ما درجي واليد العليا جعنت السريساس خير كخير بدن من اليد السفلى جعنته هوسيس قال حكيم وحيري مرك حكيم وحيري
qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi markuu sidaas ii yidhi hadal waxaa la siiyey xikmad ah oo dhammaystiran oo dadban baa la siiyey xakiim ninka la yihahdo qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waladii bacasaka bilxaq waladii allihiyaan ku dhaartay oo bacasaka bilxaqi xaq kugu soo saaraye laa arza'u axadan bacdaka laa arza'u ka nusqaamin maayo maanta wixii ka dambayso axadan bacdaka shay-a axad adig kaa dambeeyo wax ka nusqaamin maayo buu yidhi bacdaka gadaasha shay-an waxba kama nusqaaminayo arza kama nusqaaminayo kama qaadanayo wax isii ma dhahayo saasaa laga wadaa xataa ufaariqa adunyaa ilaa adduunyada aan ka faaruqa buu yidhi axad adig kaa dambeeyo weligay dambe wax ma weydiisanaya buu yidhi waxbuu fahmay soo ma fa kaana abubakar abubakar wuxuu ahaa yadcuu mid u yeeraya xakiiman xakiim mid u yeeraya buu ahaa liyucطiyahu alcaطaa'a si uu u siiyo siismo ama mushaarkiisa liyucطiyahu soo u siiyo alcadaa'a mushaarkiisa yani xilliga abubakar uu talin jiray xakiim buu u yeeraya wuxuu li xakiimow kaalay oo mishaarkaagii oo qabso fa ya'baa waa diidayaa marka xakiim waa diidayaa an yaqbala minhu shay-an waxna inuu ka qaato ani lacag ma rabi dadka kala siiya masaakiinta siiya saasoo dhihi jira suma kadibna ina cumar xilliga xukunkiisa waaye mugta suma kadibna ina cumar dacaahu waa uu yeerayey marka cumar wuxuu ahaa dacaahu mid u yeera liyucطiyahu xakiim buu u yeeraya marka hudaas xakiim waay dacaa mid u yeera hu xakiim buu u yeeraya marka cumar wuxuu ahaa dacaahu mid u yeera xakiim liyucطiyahu soo u siiyo wuxuu sii lahaa ma yani kasta kaga soo hagaagtay inuu siiyo fa abaa waa diidayey marka an yaqbala inuu ka aqbalo ma rabi uu dhahaysa yani xilliga cumar waa u yeeri jiray wuxuu dhihi jira xakiimow hoo maanta inti kaga soo hagaagtay bal halahana kugu soo aaday ho maya waa diida faqaala wuxuu yidhi cumar waa marka faqaaladan cumar ku qoro faqaala cumar wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin muslimiinta jamacoodow ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa calaa xakiimin xakiim ninka la yidhaahdo innii acridu calayhi xaqahu xaqiisa inaan u soo bandhigay ina xakiim ninka la yidhaahdo innii acridu calayhi xaqahu xaqiisa inaan u soo bandhigayaan markhaati idinkaga dhigaa aladii xaqaasoo qasama allaahu lahu alla uu qaybay subxana wa tacaala allah kusoo aadiyey xaqaas fii hada alfay fay-an fay waxaa la yihahdaa kaydka muslimiinta oo laga muxuu ahaa laga masruufo muslimiinta laga masruufa xoogaa keed waaye bangiga muslimiinta waaye muslimiinta marka ayaa laga masruufaa ninka markaa muslimiinta u hayo hogaanka u hayo ayaa muslimiinta ka masruufa waay fii hada alfay kaydkaana wax ka siiye buu yidhi halihii ilahay kaga soo hagaagin waa siiye waana diiday saas ogaada fa ya'baa waa diiday an ya'khudahu inuu qaato waa iga diiday buu yidhi inuu qaato falam yarza xakiim marka waa la sifaynaya falam yarza'u xakiim kama nusqaaminin axad oo min annaasi dadka ka mid a bacda anabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga gadaashiis cidna weligiis wax kama qaadan saasaa laga wadaa lam yarza'u xakiim kama qaadan axadan qof oo min annaasi bacda anabiyi sala allahu alayh wasalam qof dadka ka mid a waxba kama qaadan weligiis xataa tuwafiya ilaa laga oofsado ilaa uu dhinto xataa tuwafiya ilaa uu dhinto waay radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqday rawaahu bukhaari wa muslim bukhaari muslim warinaya xadiiska kastoo xadiis dheer yahay bal waxaa laga faa'iidayaa in dadku ay yareeyaan dadka inay wax su-aashaan
dadka inaad wax weydiisato iska yarey ha weydiisan qofna wax weydiisan cidina wax weydiisan ilaahay baa arsaaqdaada qoray ilaahay baa ku siinaya waqtigeeda iimaanaysa shaqayso tabco maalo laakiin qof inaad ku tashato tiraado shaxaad samayso oo tiraado bal wax isiya ama aad tugsatood meelaha ka istaagto waa la diiday midaas dadka waxaa u fasaxan yihiin horta si shareecadeenna waxay fasaxday dadka wax la weydiisan kara waxaa ka mid a madaxda dadka maamulka dadka wax la weydiisan kara maamulka ka mid a way ku fasaxan yihiin qof maamulka ah ama madaxdaada ah inaad tiraahdo waxaasaan u baahanahay isii dembi ma ah laakiin dadka kale la diidaa laakiin haddii meelahaas aad kusoo tababarato weligaa shaxaad baad ku jiraysaa marka waxaa laga wadaa bal iska daaya shaxaadka iska ilaaliya xakiim ninka la yidhaahdo ayaa laga warinayaa nebigaan su-aalay buu yidhi fa acطaanii waa isiiyey waa su-aalay waxbaan weydiistay waa fa acطaanii waa isiiyey suma kadibna sa'altuhu waan su-aashay fa acطaanii waa isiiyey suma kadib sa'altuhu waan su-aashay waxbaan weydiistay fa acطaanii waa isiiyey suma kadib qaala wuxuu yidhi nebigaa dhahaya wuxuu ii yidhi buu yidhi yaa xakiim xakiimow u fiirsaya intaasoo dhan waxba looma diideyn waa la fiirinayay bal waa loo dejinaya arrimaha marka koowaad ba haddii liila xakiimow dhibkaan dhaaf wax weydiiska badan iska ilaali haddii liila coogaa waa isxumay lahaa marka si 4 mar baa loo siiyey fursad loo siiyey 4 mar 3 mar ayaa fursad loo siiyey waa la siiyey wuxuu weydiistaba gacanta laga saaray kadib inta loo fiirsadayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam munaasabka ayuu u fiiriyey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yidhi yaa xakiim xakiimow ina hada almaala maalkan aad u jeedo khadirun waa cagaaranya waa wax un cagaaran oo indhaha doog ah xulwan oo macaan waa cagaaran yahay waana macaan yahay dadku waa maal jecel yihiin aad iyo aad faman akhadahu qofkii u qaata bisiqaawati nafsihi nafsadiisa inuu ku maareeyo waa baahan yahay baahi buu isaga dejinayaa caruur baa wax ka rabto yani nafsadiisa u baahan markaa aad iyo saas buu ku qaatay buurika lahu fiihi waa loo barakeynaya qofkaas qofkii sidaa ku qaata waa loo barakeynaya buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laakiin waman akhadahu qofkii maalka u qaata biishraafi nafsihi hunguri weyni darteeda oo nafsadiisa hunguri weyni gashay biishraafi nafsihi hunguri weyni darteeda lam yubaarik lahu fiihi looma barakeynayo buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wa kaana qofkaas wuxuuna ahaanayaa kaladii kiioo kaloo ya'kulu cunaya ama kaladii midkiioo kaloo noqonaya oo ya'kulu cunaya walaa yashbac aan dhargeynin qof cunaya aan dhargeynin oo noqonaya ee xakiimow walyaddu lculyaa gacanta saraysaa khayrun ka khayr badan min alyaddi suflaa gacanta hooseysa sidaa ula soco waa xikmad cajiiba nabi maxamed sal alay slam hadallada uu ku hadlay u fiirso isla markii ma dhihin xakiimow soo noqod qofka waa la xumayn karaa sooma waana la samayn karaa hadalka waad toosin kartaa waana qaluucin kartaa hadalkaaga waad toosin kartaa waana qaluucin kartaa nabi maxamed sal ly slam ma dhihin xakiimow soo noqodkaagaa batay dhibkaan dhaaf dadkaasaa xaqaa leh dadka kale fursad sii ma dhihin mala xumaynin hadal meel yara laga tusa maalkan waa macaan yahay waa fiican yahay laakiin qofkii u qaata bal inuu nafsadiisa ku maareeyo wuu fiican yahay ilahay waa u barakeenaya u fiirsaya qofkii u qaata haddaan dhan kale laga soo galay qofkii u qaata inuu hunguri weyni iyo waxaas ay ka tahay looma barakeynayo wuxuuna noqonayaa mid wax cunayo aan dhargeynin oo kale saasoo kale noqonaya hadal macaan wa xakiim marka waa fahmay xikmadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asi in laga wado waa fahmay macnaha loolama jeedo marka xakiim ahaa nin hunguri weyn loolama jeedo xakiim nin hunguri weyn ma ahayn bisikhaawati nafsihi u qaadan jiray nafsadiisa u qaadan jiray saxaabi buu ahaa qiimo badan laakiin dadka kalea wax la barayaa adigoo kale haddii dhegeysanaya wax lagu barayaa noqnoqodka faraha badan qofka ka dhaaf maanta haddii aad tirahdo qof hebel 1,000 shilin isii yoomi waa ku dhibsanaya 1,000 shilin yoomi isii noqnoqodka badan ma fiicna waay qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow waladii bacasaka bilxaq allah xaq ugu soo saaray aan ku dhaartay laa arza'u kama nusqaaminayo axadan qof oo bacdaka gadaashaa shay an waxba kama nusqaaminayo yacni qof gadaashaada adiga intaad dhimato gadaashaa cidna wax kama qaadanayo buu yidhi waa iidha bis waa xataa ufaariqa addunya ilaa adduunyada aan ka tago buu yidhi فكان أبو بكر وحو أها يدعو مد وير يعني حلق أبو بكر نبي قاعد انتي أبو بكر بحكم كقبت سوما أبو بكر وحو أها يدعو حكيم بو وير جري ليعطيه سيوسي العطاء مشاركيس سيوسي ووعى
حكيم وكاله هو مشارك هذا قالوا لي فيأبى وديدي أن يقبل منه إنه كأقبل شيئا وحبا إنه كقات وديدي جري حولي جري ما هي سودوين مرة به شقي سنة ودي جن شقي سنة إسكراف ذك ثم كذب إن عمر وحوها أو بكر دنتي عمر بحكم قبت سوما عمر وحوها دعا ليعطيه وأويري جري سو أسيو سيسمديس وحيابي كجسو هجاج إنه سيو فأبى وديدي أن يقبل إنه كأقبل وديدي جري فقال عمر وحولي جري مرك عمر وحوليه يا معشر المسلمين مسلمين تجمعوا دو إمخلا أو إذا جيست أشهدكم وحن إذا مرقاتي قلنيا على حكيم نكلي هذا إني أنا وأعرض عليه حقه حقي سواء بندقي حقي سنة هذا وحن دايس هو حق حكيم وقبصه لعكتان هو ها واني الذي حق سو قسمه الله له في هذا الفي إلهي سبحانه وتعالى أخيبي أما أخيبي في هذا الفي كيد كان أخيبي في أنا وان soo sheegay muslimiinta kaydkooda waay dadka laga siin jiray markaa oo aad u shaqeeya la siin jiray muxuu ahaa mushaarkooda si ay ehelkooda u anfacaan fayaba an ya'khudahu wadiiday ogaada wadiiday an ya'khuda inuu qaato wax inuu iga qaato wadiida haddaba ka marqaati noqda ka marqaati ani uma diidin waa cidina waa cadaalad baan wadaa caadil baan ah ninkaas waa diiday haddaba saas uu la socda saas loo baahan yahay qofka madaxda إذا مارس ما فعنا واي فلم يرزق كما نسخة من حكيم نكلي هذا فلم يرزق كما نسخة من أما كما قاذن وريكتا كما قاذن فلم يرزق كما قاذن حكيم نكلي هذا أحدا قفوا من الناس ضدك كمذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي قداشيس عندنا وح كما قاذن عندنا كم حكم قعنتي زوج كل شقيست أيو قاذن جري حتى توفي إلا لقى أوفصده أم إلا أوكجيريودو رضي الله تعالى عنه الله كرى عليه نقضين هاي رواه البخاري ومسلم وريني هذا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم